السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaan nagala socotaan waa Toosiye Journal. maanta sheekadayna waxaynu ku soo qaadanaynaa badmaaxii reer Baghdad ee la oran jiray Sansibat. Sansibat waxa uu ahaa nin safaro badan had iyo jeerba doonsi saaran. waxa uuna lahaa qisooyin tiro badan iyo sheekooyin badan oo la kulmay. maantana waxaynu ku soo qaadanaynaa sheekadeennii mid ka mid ah sheekooyinkiisii sansibaadul baxri ama badmaaxii reer Baghdad. waxaa la yidhi hadda ka hor ayuu sansibaad waxa uu aaday safarkaas oo aad iyo aad u dheeraa. in muddo ah ayuu waxa uu ku jiray badda. siday u socdeen ayay waxa ay arkeen meel jasiirad ah. aad iyo aad ayay u farxeen, waxayna ay go'aansadeen inay jasiiraddaas tagaan ayna ku nastaan. markii ay jasiiraddii soo gaareen waxa ay la kulmeen dhul barwaaqo ah, miraha, biyaha macaan. aad iyo aad ayay ula tacajabeen. dadkii doonta saara waxa ay ku yaaceen jasiiraddii ayagoo marihii cunayo. quruxdii jasiiradna aad iyo aad ula yaaban. sansibaad isaga horay ayuu usii galay jasiiraddii. markii mirihii iyo biyihii uu ka dhargaynaa waa uu seexday. waxa uu ku fakerayay doomaha in muddo ah bay joogi doontaa, laakiin nasiib darro intii uu hurdayay ayuu waxa uu galay hurdo aad iyo aad u macaan, uunan sharqan dhan uusan maqal. nimankii doonta lahaana waxa ay u ambabaxeen safarkoodii ayaga oon dareemin sansibaadul baxriya in uu joogo. cabaar kadib ayuu soo toosay. haddii uu fiirshay doontii waa ay baxday. waa uu qiiliyey laakiin waa ay maqli waayeen. sidaas ayay ku ambabaxeen isaga oo aad iyo aad u naxsan, yaaban. maxaa samaynaysaa isdhahayo, meeshaan miyaad ku dhiman doontaa? jasiiraddii marba dhinac u wareegayo, geedaha dushooda fuulayo si uu bal dad u arko ayuu waxa u arkay teendho, shay cad oo aad iyo aad u weyn oo teendho la moodo. haddii uu fiirshay waa maxay teendhadaas caddaanka ah? malaha meelahan dad ayaa ka dhow. geedkii ayuu ka soo degay, waxa uuna soo aaday teendhadii meeshii ay ku taallay isaga oo ku faraxsan in uu helo dad. haddii uu teendhadii imaaday maba lahan albaab laga galo. dhinac walba ayuu ugu wareegay. wax duleel ah iyo wax albaab ah kor iyo hoosba maba ku yaala. in cabaar ah markii uu ku wareegay ayaa waxa uu dareemay daruur dushiisa hareeyay. haddii uu fiiriyeyba waa shimbir aad iyo aad u weyn. waa uu ka cararay meeshii isaga oo la yaaban, shimbirkan waa maxay? haddana waxa uu soo xasuustay qisooyin oo maqli jiray. waxaa jira shimbir aad iyo aad u weyn, kaas oo markii uu maroodiga qaato sidii galeer jiir qaatay oo kale ah u dafayo. meel ayuu isku dhegiyey isaga oo naxsan. shimbirkii sida u soo waday teendhadii ayuu ku fadhiistay oo waxa uu teendhada cad moodayay waaba ukuntii shimbirkaas. kadibna waxa uu yidhaahday, meeshaan waad ku dhimanaysaa ee bal aqli iyo xeeladka. kadib waxa uu go'aansaday habeenkii in uu isku xiro lugta shimbirkii. xarig ayuu soo qaatay, lugtii shimbirkii ayuu isku xiray, waana uu ku dhegay. waagii markii uu baryay ayaa shimbirkii duulay. hawadaas ayuu galay isaga oo u rumowday riyadiisii. laakiin waxa uu ku fakerayay sidee baad uga degi doontaa. isaga oo ku fakerayo sidee uga degi doontaa, baddii uu la kormaray ayuu waxa uu imaaday meel buuro ah. buurihii haddii uu imaaday
meel qar ah ayaa shimbirkii ku degay. Kadibna halkaas waxa uu ka qaatay mas aad iyo aad u weyn, laakiin intii oo maska ku mashquulsanaa ayuu xariggii iska furay, waxa uuna dhex galay qararkii buurtii. Shimbirkiina mas ayuu qaatay oo iska haaday. aad iyo aad ayuu ugu farxay maadaama meeshii fogeed laga soo qaaday ee meel kale la keenay. laakiin godka qarka la soo geliyey maba lahayn meel looga baxo. dhinacyada ayuu fiirshay, kor ayuu fiiriyey, meel laga bixi karana maba lahan. aad iyo aad ayuu u naxay. waxa uu arkay dahab tiro badan oo meesha daadsan, diamond, dhagaxda qaaliga ah, jawharti. waa uu ku farxay, wuu la yaabay. intii uu faraxsanaa wuxuu arkay masas aad iyo aad u waaweyn oo weyninkoodaba la malayn karin. waa uu naxay. masaskan weyninkooda wax mas ah, laakiin markaas bannaanka jooga ma lahan, oo shimbiraha kor hadhadayo ayay ka dhuumanayaan. laakiin haddii uu habeenkii galo kulli waa ay soo baxayaan. mana jirin godkaas qof soo galay oo ka badbaadayna ma aysan jirin. aad iyo aad ayuu u naxay. alla maxaa meeshaani keenay? taydii ayaa ii rooneed, meel miro laga cuno ayay lahayd. habeenkii waxa uu ku hoyday meel god ah ayuu galay. godkiisaas habeenkii dhan uu ku jiray. markii waagii baryay oo masaskii kala xaroodeen ayaa Sansibaad godkii ka soo baxay. haddii uu bannaanka imaaday mise waa masas waaweyn oo godka qararkiisii iyo geedihii togi ka baxay ku wada yaallo. isaga oo aad iyo aad u naxsan, u qanacsan, kuna fakarayo sidee aa ku badbaadaysaa, ayaa waxa uu arkay hilbo waaweyn oo duuban oo godka ay ku soo dhacayaan. waxa uu yidhi waa maxay? wuxuu yidhaahday waxaan xasuustay ama uu xasuusayayba xilligii godad dhaymanka ku yaallo oo ciidina ay geli karin, dadka in ay hilbo kusoo tuuraan. markii hilbahaas shimbiraha ay qabsadaan ay la duulaanna ay ka ridaan ayuu xasuustay. alla waxa uu yidhaahday qarka sare waxaan u malaynayaa rag ayaa joogo, hilibkaana ayaka ayaa soo tuuray. kadibna hilibkii ayuu dhinac kaga dhegay. dahab badanna waa uu ka aruursaday meeshii. in cabbaara waxaa soo degay shimbir weyn, waxa uuna dafay hilibkii. markii uu bannaanka la tegayna raggii ayaa waxa ay ku tuureen waramada, ayaka oo ka daba qiiliyey ilaa uu la tegay godkiisii. raggiina waxay dhahayeen alla bahal hilibkii maanta nin ayaa ku dheggan. nasiib wanaag waxa uu ka soo badbaaday shimbirkii la tegay inuu hilib ka dhigto. kadib raggii way ku soo shamuumeen. hilibkii ayay fiiriyeen, haddii baareen wax dahab ah oo ku dhegganba ma lahan. ninkii hilibkiis ka lahaana waa uu qaraacmay. waxa uu yidhaahday alla maanta khasaaro ayaa igu dhacday, wax dahab ah ima soo raacin. laakiin waraysi dheer kadib Sansibaad waxa uu ugu sheekeeyey qisadii ku dhacday, sida uu meesha ku imaaday. ayagana waxay dhaheen qof godkan galay oo ka soo badbaaday weligeedba lama arag. waxa uu yidhaahday dahab aniga ayaa inoo hayo oo inoo soo qaaday, keyga ayaana nagu filan, iga kaxeeya meesha ee meel magaalo ah nageeya. sidaas raggiina aad iyo aad ayay ugu farxeen dahabkii iyo dhaymankii oo Sansibaad meesha ka soo qaaday. wayna ugu mahad celiyeen, wayna ugu hambalyeeyeen dhibaatadii weyneed ee uu ka soo badbaaday. kadibna way israaceen. sidaas ayuu ku cido galay Sansibaad oo nabadgelyana ku helay. halkaas ha inoo joogto maanta qisadeenna iyo sheekadeennaba. waa inoo sheeko kale insha allahu tacaala iyo sidaa ugu dhaqsiyaha badan.